السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب سيدة شرفتي كرام مدى قمضوا الميكس تادوني ذا كجنوشين ولكن عبدو لها كقدام سنة وقياستي في دماتي وحن كعصنية مرة بعد مرة تحدون يسود واتان حن كعصنية دماتي بمرة بعد هدي كل صبتاي أما أركتيد موقع كيكن إن سبسكرايب كي صارتي لايك تيشير تنادي راعي هذا أوجد إن كم كان كسب بحيث سنة وقاعدين الطاوطي أدو وهبلة إن مركا نقصو كل سيد وحي فكرة القبتين نقصو كل سيد أدو ما سنتي دماتي بقى ما أنتوا حدوني نكير شيكا أظن نحدين بدن قصة حنون بدن oo qofka bini aadanka markuu dhageysto qalbiyan iyo maskaxiyan uu soo jeesan karayo dhageysan karo maxay tahay de wixiina ay noqonayaan wax asaga laftiisa inaanu samaynin uu ka baqa doono waxa weeye qofka bini aadanka inuu galo gudub inaad gashid gudubtaasi kala duwan wali gudubta qofka bini aadanka ka gelisay gudubtaasi kala darane gudub haddii aad gashidna gudubaha dumarka lagama galo nafsiguna waqti uu yimaado nafsigu ama ha kugu soo raagay ama ha ka soo raagay ama kugu soo degdegay marbu kugu dhacaya waa wiil Soomaaliyeed nafsi ku dhacay nafsi ka galay oo markaad dhageysatid ama aad qofka inantii u wareysatid ama inankii aad wareysatid labad walba ku sheegayo maxay tahay naxdinta iyo qalad ku galay inaanu marnaba ninka ku qanacsanayn inantii lafteeda ay leedahay haddaan ogahay nafsiga ninkan ku dhacayo ama uu noocan noqonayo marnaba anigu maxay tahay dib uma jaleecano ma sii eegeen hoosna ma sii eegeen waan dhaafi lahaa yani waan dhaafi lahaa waa wiil Soomaaliyeed oo maxay tahay deganaa magaalada Burco deganaa waqtigaas uu guursaday inan buu guursaday ama gabadh qof basoo yaqaano markuu inantii guursaday waxay u dhashay laba caruur ay u dhashay ku waxaa inan aan dhaqaale haynin buu ahaa dhaqaalihiisu u liito maxay tahay xoog sida oo xoog maal ah ayuu ahaa inankii xoog maalka ahaa markuu maxay tahay inantii uu guursaday uu magaalada soo xamaali jiray ayaa wax bilaabantay laydid hariibta loo jira bilaabantay kadibna inanka weynantii wuxuu kula tashaday wuxuu yiri maxay tahay sidaan ku sii jari kareemayno in tahriibaan doonaya reerkoodana ku reer miyi buu ahaa ama reer baadiyo qof basoo yaqaano magaalada waxa deganaa dad ay xusu yihiin oo maxay tahay qaraabada ama idooyinka ama habaryaraashi oo dayigu laftooda awood dadku aan sababo ray inankii markaa inantii uu la tashaday wuxuu ku yiri mar waa inaan tahriibaan doonaya adduunyo ma hayaan guri wuxuu ku jiraa laba maqsin ah oo maxay tahay laba maqsin oo laba jiingada bay ku jiraan labada jiingada ay ku jiraan maxay tahay waxay cun lahaayeen way helaan waxay cabbi lahaayeen way helaan inta badanna waxa ba caawiya inanta inama ay walaalihiin shaqaysto oo ladano magaalada Bakhaarey wax ku leh ayaa reerka caawiyo oo inanka mixradii u furay oo dhaqdhaqaaji laba caruur ay soo hayaan inan bay soo hayaan marka inankii inantii soo hayaan bay inankii ku taliyay inuu tahriibo inantu wax ku tiriido waan kula qaadanaya tahriibta laakiin maxay adduunyo haysaa wuxuu yiri odayga iyo adeerka ayaan ka dhaqdhaqaajisay baloor yar oo ku yaala magaalada dusheeda oo marka qiimaha lagu qiyaasay hadii la iibinayana noqonayay 100 ama 200 noqonayay taariikhdu waa 13kii meelaha 13kii weeyii waa 13kii taariikhdu waqtigaas inankii inantu way la qaadatay wixii maxay tahay ay tala siinayso asugu markaa euro urursado ilaa 2500 meelaha gaadhis uu hayay 200 beenantii uga yimi intii kalena wuxuu halkaas ii taalaaye ii soo dir markay soo gaadhaba oo heshiis bahayay baa lagu galay inankii ta dheer buu soo dhuftay inankii wuxuu yimi maxay tahay liibiyo yimi markaa waqtiga waxa isku soo qaadi jiray saa la sheegay taariikhdu markaa maxay tahay maxawil wax la yiraahdo ilaa iyo maxay tahay Hargeysa ilaa iyo maxay tahay Trablus areadeeda Libya areadeeda bilaash baad ku imanaysi laakiin marka Trablus areadeeda timaadid ayaa lagu horeeyay lacagta shub inankii waxa lagu xukumay 5,200 baa lagu xukumay dhaqaale ma hayo aabihii dhaqaale ma haysto waa reer miyi hooyadii dhaqaale ma haysato waa reer miyi adeeradii iyo dadkiina xoogooda iyo caruurtoodu bay u ordayaan ayadii waxba kaga iman dhaqaalana mu dhiiban 1,500 waxaan dhaamin ayuu ayadu haysay waliba aad sababa ay lacag ugu soo dirtay walaleedeed ku cabaatay waxay ku tiri walaalaya maanta iga saara magafaninka iga saara dahabka haysay bay iibisay guriga wixii uu kaga tagay bay wada iibisay gurigii walaaladeedna way tagtay markii taas ku dhacday waa laga saaray ninkii magafe Trablus baana loo sii diray mar labaad ayuu haddana intii Trablus joogo jeel galay 1,200 lacag gaaraysa ayaa lagu xukumay in lagu soo deynayo 1,200 lagu bixiyay way bixiyada bixisay wuu soo baxay doontii bay noqotay
saddex meelood oo laba meelood ka mid ah ayay iyadu soo qaaday reerkooduna waxba laga soo ururiyey doontiina waa laga bixiyey talyaanigu soo galay mudduu talyaaniga joogay lacagtu talyaaniga kaga baxayey ee uu ku gelayey waddanka la yidhaha Norway ayay ka bixisay wuu dhex maray halkaasuu maro saasuu Jarman ku dhex maro saasuu ku maro saasuu Denmark ku maro saasuu Sweden ku galay saasuu ku galay maxay tahay meesha la yidhaha maxay tahay Norway ku galay Norway markuu galay uu muddo joogay 3 bilood meelahaas 4 bilood meelahaas uu joogay ayuu sharciga qaatay markuu sharciga qaatay waxa niyadeeda inantii gashay waad maanta ayaad maxay tahay midhahaad beeratay iyo ninkaaga iyo caruurtaada aabahood uu ku qaadayaa maanta ayaad guushii gaadhay maanta noloshii qaybtii aad doonaysay aad ka gaadhay isaguna inta inanta wuxuu ku lahaa waan ku qaadayaa waana kuu dacwooday wayna wada baxayna waad baxaysaa diyaar garow bilnii ayay sheekadii noqotay 4 bilood markuu joogo sharcigii qaatay 6 bilood markuu joogan inankii hadalkii iyo telefoonkii wuu yareeyey waxay uu dirdiri jireen wuu joojiyeyba inanka waxay isbarteen inan magaalada degan oo maxay tahay dadkii sharciga waaweynaa haystay ahaa gabadh iska shaqaysata ah meel dukaana ka shaqaysa oo aad u ladan inanku wuu ilaaway jacaylkii ka dhaxeeyay asaga iyo marwadii burca joogtay wuu ilaaway wixii isa soo mareen wuu ilaaway dhammaan wixii ay la soo martay iyo dhaqaalahay ka soo bixisay wuu ilaaway wax allaala iyo waxay u gashay iyo waxay u gudday ee iyadu ay u bixisay ee hawshiisa ahayd qalbigeedii wuu ka maydhmay gabadhii kalaana u go'ay 9 bilood markuu meelaha joogay ilaa sanad ku dhawood markuu joogayna afxumo iyo hadal xumo iyo waxbuu bilaabay inantii isbedel weyn baa ku dhacay inankiibay aragto isbedel weyn ku dhacay waxaanuu gaadhay markii dambe haddaad qaylada dee weydad waan ku furayaa bay gaadhay waan ku furaya ayay gaadhay sanad ya bil markuu joogay ayuu warqadii siiyey sanadii 2 bilood markuu joogana gabadhii kale u guursaday xafladiisii bay maqashay xaflad weyn buu dhigtay aroos weyn baa loo dhigay wuxuu ku tashaday inuu maxay heetoy oo dee sidaa ay inantii ku kala tagaan inantii ismay dhigan way soo tahriibtay iyadina way soo baxday isugu dhanbay timi waxay soo orodaba isugu dhanbay timi markay isugu dhan timi way sharcigii u qaatay ay sharcigii qaadatay iyadina ay caruurteedii soo qaadatay umay tegin mana ogeyn inuu yimi iyo in kala war muu hayn asagu bad kale uu ku jiray dabaal kale uu ku jiray ayay caruurteediina soo qaadatay inankii inanta xumeeyey ee Norway joogay gabadha kale ka raacay ayaa waxa ku dhacay waxa jira Norway waxa bilowday telefoon la dhageystay iyo maxay tahay inaad qof ka yimi maxay tahay meeshii loogu talagalay iyo wixii inay dhageysato dawladda waa inay ku tiri dabagal baan ku haynahay interview kaale interview maray sharciga waa lagala noqday baa lagu yiri sharciga waa lagala noqday markuu inanka sharciga lagala noqday waa isaguna ogaaday inay intii Sweden joogto caruurtiisina ay Sweden joogto ayuu xiriir la soo sameeyay inantii wuxuu yiri maxay tahay sharcigina waa lagala noqday gabadhii uu guursaday ee joogtay ee Norway la joogtay waxa ku tiri mar haddii sharciga lagala noqdo waa la idhaaf ilaahu karaameeye idhaaf fara albaabkayga bax ayadina warqadii buu siiyey sharcigina dawladdii waa kala noqotay Sweden buu soo cararay Sweden buu faraha dhigtay caruurtiisii iyo gabadhii soo booqday dib u xidhxidhay uu yiri dib maxay tahay dabal xisaabtaadii hore wax dib ugu noqon gabadh fariiday ahayd laakiin way ka dhacday Sweden baa qabatay oo ku celisay Norway baa xabsi inankii dhigtay burca ayay ka tuurtay muqdisho ka tuurtay kadibna burca soo galay inantii markii Sweden bay joogtaa iyo caruurteedii isaguna burco ayuu ka qaati ku iibiyay wax xisaab aad u weyn waa gudub waa nabsi gabadhu ku sii cararayay ee uu guursaday way eriday sharcigu isku xarif gareynayay waa laga qaaday tuu isku xarif gareynayay burca joogtay Yurub bay joogtaa sharcigii caruurteedii bay la joogtaa isaguna maanta burcu joogaa waxaan ka codsanayaa inay gudubta gelin hablahana gudubta inay rag uu ka gelin dumar oo inuu gudubta iyo maxay tahay nafsiga iska ilaalisaan aad baa u mahadsantiin
intaasaan kusoo koobaya qisadaas maxay tahay dhex martay labadaa qof ee maxay tahay xaaska isu ahaa ee isqabay aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay dad ka heshay iyo haddaad daawatayba subscribe noo saar like sheertana noo raaciya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa mahadsantihiin sharaftayba korkiina ha ahaato